mahadsantihiin بسم الله الرحمن الرحيم قلب wanaagsan marka hore waxaanu aad iyo aad ka mahadnaqaynaa saad noo sharafteen si aad noo soo dhaweyseen kalgacalka iyo niyadda fiican ugu soo dhaweyseen waa idinka mahadnaqaynaa aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa jazaakumullahu khayr mahadnaqaa kadib dheerayn maayo laba qodob oo yaryar baa sheegaya mid waxa weeye xasuus iyo goobtan halkan aan joognaa ayaa goordhoweyta waxaan la sheekaystay nin odaya oo odayaasha magaalada taariikhda ayaa intii anugu xasuusnaa iyo intii isagu garanaayana aan weydiiyey waa tiin baroo waxaan ku idhi war halkaasi awal magaceedu soo booroogii bay ahayd markaasuu booroogii waxaa ka horreeyey intii aan garoonka Hargeysa la dhisin garoonkii diyaaraduhu ku soo degayaan buu ahaado diyaaradaha yimaadana waa la handharin jiray marka anigu horta ilaa booroogii baan ka leeyahay militariga scoutka la yidhaahdaana markay bixinayaan salaanta oo tii ugu weyneed berigii la dhisay garoonka Hargeysa iyo cusbitaalka Hargeysa Afrika Tokyo odaygu wuxuu ii sheegay markii uu yimid boqorada adeerkeed halkii salaanta lagu bixiyey ee tigidhada ay ku sawirayeen nimanka askartiina inay halkaa boorooga ahayd waa bannaanka imka garoonka yara aqalaas degayiin waxa kaloo halkan xusuus ay leedahay berigii magaaladu roobka badan lahayd ee barwaaqada ahayd ee dooxuna gobta lahaa gobkaanu ka buran jirnay halkan waxaa ku yaallay laba gal oo waaweyn mid halkaa la odhan jiray biica duuha halkaa imka aqalkaa kaaf ay ku qoran tahayna wuxuu ahaa gal la odhan jiray dafiraye waxaa loogu bixiyey ciyaalku marka ay yimaadaan ay dharka dhigtaan ay ku dabaalanayaan ayay kuwa toortii naga qaadan jireen shaararka markaa adoo bilaa shaarar xaafadii ku noqon jirta markaasaa la odhan jiray waa dafiraye ka kale halkan uu ahaado biica duu ahaado isagu waxba muulgi jirina bala yar buu ahaa halkana waxay ahayd bannaan baabuurta lagu koreeyo waa mahadsantiin dhalinyarada intaa aanu sheegay halkan markii hore waxdana waxay ahayd baabuurtaa lagu karin jirayoo kuwa hawdka qabanaya halkaa buurtaa yare dusheedana waxaa ahaan jirtay istob la joojiyo baabuurta taraashiifka lagu baadho oo la yidhaahdo istobta bulugley waxaan ka codsanayaa dadka iga waaweyna taariikhda haya ee odayaasha odayar iga dambeeyay inay qoraan si dhallinyaradu ay taariikhda u badato waayo meel waliba qoladan dawladda hoose maxamed awaadaniya waxaan leeyahay maar magaaladu tilmaamaha inay taariikhdeeda ay naga dhisinee waa inay jirtaa goobo la yaqaano magaaladu taariikh u leedahay haddii meel walba la bixiyo aqal yar oo laga dhigo magaaladu ay naga dhisan doonto taariikh markaad inta aroba ka timaado gurigani waa gurigii ugu horreeyey ee xaafadda laga dhiso ee guri intaa looga deyrnay ha laga dhisay yaa dhisay gurigan waxaa dhisay janankii ugu horreeyey raaxku dhagax waxaa dhisay siyaasigii ugu horreeyey ee 68kii siyaasadii baarlamaanka u tartamay taar adams inta qolada arkiifyadu waxay igu dartay qoladan iga waaweyn inta arkiifyada daba joogta waxa kale ii sheegayaan in gabadhii gurigan lahayd ee xaasataan ahayd ay ahayd gabadhii horreysay Somaliland ee laysa qaatay gaari ka xaysay rabisbaas intaas waa sheeko xusuuseed iyo goobta ama taariikha inta markaynu dhaafno aad iyo aad baan soo dhaweyntan iyo kalsoonida ka mahadnaqaynaa
haddaynu xisbiga kulmiyanahay waxaynu xisbiga u samaysanay waxaynu isu taageeraynaa inaynu dalkeenna iyo dadkeenna iyo diinteennaba wanaajinno saddexdaa qodob baynu soconnaa dhallinyaro ujeeddadeennu waxa weeye dalkeennu aynu wanaajinno dadkeennu aynu wanaajinno diinteennu aynu wanaajinno si aynu wanaaggaa u gaadhno waxaynagu waajiba inaynu nafteenna iyo akhlaaqdeenna wanaajinno markaa haddii aynu ku jirno tartan innaga waxay naga reeban ceebta cayda waxay naga reeban dhaqanxumada inanka yar ee ama wax caaya ama qof weyn tuura ama xaafadda rabshad kala shiraa wuxuu ka baxayaa anshaxii kulmiye dabeetana waxaynu ku qaabaynaa waanu ciqaabaynaa sida macallimiinta u ciqaaba waxaan odhanaynaa inanka garoonka kubadda ku ciyaara ee garoonka maruu ka soo ruuxee laga badiyo ama garoonka inanka uu ku xanaaqo shiida qaar baaba midiya soo qaataa layidhi taasi waa badnigu nin kubad ciyaaraya inuu midi soo qaato ma aha inanka garoonka ku ciyaara ee ciyaalka marka islaayaa wax tuurtuura ee burqaatee dagaalama maya waxaynu doonaynaa inuu noqonno ummad ilbaxa oo kubadda si saaxiibtinimo u ciyaarta oo tartanka si fiican siyaasiga u gala oo deganaanshaha jaarka iyo xuquuqda ilaaliya inuu noqonnaa baynu doonaynaa saasaa inoo ballana wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu